السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتين باقيارتا ودن نقل السعوتاي وقيبت اللبات هي قيب كمده قصوينكي نفتهور الشهيد جني على قراءة قصدني وابوان عبد الرزاق هبي وحان إذن لسعود سينيسة أنا مريم حمدي مالنتا أنا وحان برتي لبايا رأيه كمده أفكام حارقة sida Itoobiya agar salaam iyo Masaariyaas kamid oo macnaheedu yahay Itoobiya waa nabade ee qoriga iska dhig laakiin macnahooga maan garanayn maalinkaas Kenya baan galay Ilaahay amarkii nin dheero caso qurux badan oo gaaladii kamid ah umba orad isa soo naadiyay hooguhu qaabkiisa iyo quruxdiisa waxaad moodaa Soomaalidii asalka ahayd markaan arkay ninkii oo gaaladii ka soo go'ay umbu alla kaartay waafajiyay duruufaha iyo waayuhuna marbay barako noqdaan intaan foorarsaday oo orad iskaabiyay yaan cadaad ah oo dhuuban oo layga dhaxarkayn oo iga xiga xagga cadowgan ka nimaanay ayaan isku gaabiyay isaguna ima arko inaan geedkii ku soo laabtay xaggii buu u sii ordayaa durbakiyo ordi ayuu isku soo dhax qaaday afkaanan u saaray laba xabadood oo degdeg ah ayaana laqsiiyay marka halkii buu ku baqtiyay qori qaadasho iyo hawshaas ma jirto ee xagga wiilkii baan u orday waxaan maqli jiray waxaad sharmoodo qayrku noqdaa jira gaalkii markii hore uu soo ordayay shar baan moodayay laakiin wax ka bedelan buu noqday waxaan u imaaday ganay oo ku celcelinaya Allahumma ansurnaa cala alqawmil kaafiriin oo macnaheedu yahay rabbiyo nooga gargaar qoladan gaalada ah cadowgii gees hal mar bay dhawaaqayso waxaan isku darsadeen waxayna ku xoontay ama ay ku urureen gaalkii aan ka dilay waxaan qumaati u arkay dhaawacyadii ku yaalay wiilka markaas baan ku yidhi saaxiib ganayow huuno meelaan ku badbaadno ama meelaan u baxayno midnaba ma jiraan ee halkaas baanu fadhiinaa ilaa aynu ka shahiidno wax yar markaan fadhinay ayaan ku yidhi walaal bal yara luud aan ka dambeeye uuna yara luuday sidii baana ku wadnay wax weel ahna waxaan ka wadanaa gisti yaroon shaah ku karsan jirnay iyo bahal yaroo jabhadu u taqaano kubadda oon xalay reer ka soo qaadanay oo qiyaastii bakeeri qaad ah qolada gawaadhida wadaya dirawaladuna waxa ugu jirtaa saliida loo yaqaano saliid breekta kubadda yar waxa ku jira in yaro caana ah oon isla hayn aad shaah ku cadaysataan intiina wiilkii baan afka u saaray baydh xitaa ma wadano oo baylkii aanu wadanay xabadii baan nagala baxday Ilaahay awoodiis gaaladii ninkiiba sidii ugu dhagan tahay oo wax naga soo daba shanqaday ma jiro sheekada kala fogeyne waxoogaa markaanu wadnay wiilkiina uu dhiig baxayo si aan qiyaas lahayn ayuu saaxiibkaygu yidhi halka aanu ma dhaafi karo awoodiina waa iga dhammaatay durba suntii ayaa ku kacday indhihiisina waa ay bedelmeen wuxuuna igu dhahay biyo ii doon oo halkeenu doonaa talaba way igu ciirsan tahayo dhulkaba ma aqaano xitaa weelan ku soo qaato ma wato waan iska dul fadhiistay ganayna waa uu bedelmay kiiyoo leh huuna biyo xaaladdu way igu adkaatay murugana way ii korodhay markuu xaal halkaa marayo laba arrin mid baan isbarbar dhigay inuu saaxiibkay halkaa ku nafbaxo kiiyoo leh huuna biyo iyo inaan meel biyo ugu raadiyo haddii la doono meesha haba loogu yimaado intaan maqanay haba la dilay waxaan go'aansaday inaan iskaga tago oon biyo doono intii aan jiiday oon geed midhayo ah ku tiiriyay qoriga gacanta u dul saaray ayaan u sii jeediyay dhanka iyo raadkanagii iyo xaggan ka nimaanay ee cadowgu naga jiray waxoogaa uu soo yara miirsaday markaas baan ku yidhi xaggaas u sii jeed gaaladu marka ay ku timaado ay ku soo kor istaagto laa oo sidaas yeel waanan tilmaamay wuxuu igu dhahay waayahay huuno waa ballane orodo biyo ii doon waan iskaga soo dhaqaaqay dhulla ma garanayo oo aqoon u melihi dhulka alla iska wato un baan ahay intii aan sii socday waxa ay sawiranta wiilkii oo loo yimid oo gaaladu dilayso anigii baa sheekaysanoo wuxuu uurku leeyahay genay magaaladii baa heloon oo dili ma intaad maqan tahay buu dhiig bixi mise isagii oo nool baad u laaban murugo iyo ciil weyna waxay ku soo dhacaysa heestii naftuhura shahiid abwaan dhagacade ee ahayd nin cadayoonayo bariya ciil ku seexdo colka soo horjeedo cidla jooga baan ahay xooflaha libaaxiyo cawshiya deerada la cawaysimaayo habeenkii cadaystaan waa tahay dhageystayaal intaas waxay noogu qaybtii labaad ee qisadeenan intaanu ku kulmadeenno qaybta xigta waxaan idinkaga tageynaa aniga iyo baxda dayax weerar media sidaas iyo amaano Allah